aniga iyo adiguba waxaynu ognahay inuu akhrisku faa'iido weyn u leeyahay nolosheena. maalintaad go'aansato inaad akhris bilowdo waa maalintaad go'aansatay inaad noloshaada horumariso. haddaba muuqaalkan kooban waxaan kuugu sharixi doonaa 7 qaab oo aad u faa'iido leh, kuwaasoo haddaad raacdo noloshaadana aad ku dabaqdo wax weyn u taraya noloshaada. haddaba koobkaaga shaha soo qaado, notebookgaagana soo qaado si aad wax badan uga faa'iido. soo dhowow mar kale. qodobka koowaad waa inaad leedahay hadaf. hadafku nolosha wax weyn ayuu u taraa. qofka hadafka leh iyo qofkaan hadafka lahayn waxyaabo aad u kala duwan ayay leeyihiin. hadafku waa direction ama waa jiho kuu rumeynaysa riyadaada. processka ama systemkuna waa waxyaabaha kuu hirgelin kara inaad rumayso riyadaada. tusaale ahaan, haddii aad tiraahdo sanadka waa 12 bilood, 12kaa bilood bil walba waxaan akhrinayaa buug. waa hadaf cayiman. hadafkaaguna mar walba waa inuu noqdaa smart, wax xadidan, la gaari karo, la cabiri karo, waqtina leh. bisha soo socota haddaad tiraahdo, tusaale ahaan buugga la yiraahdo Atomic Habits waa caadooyinka ka sheekeeya, tusaale ahaan ayaan akhrinayaa. buugga magaciisa waad garanaysaa, waana xadidan yahay. bisha soo socotana waad akhrini doontaa. hadafku waa mar walba wuxuu ka yahay qayb nolosheena. mar walba xasuusnow inaad hadaf leedahay. hadafkaasuna ha kuu qornaado. mar walba hadafkaagu uu kuugu qoran yahay buug. waa mar walba aad u dhowdahay inaad xaqiijiso riyada. qodobka labaad ee kuu horseedi karaa inuu akhriskaagu sii socdo waa inaad leedahay schedule. inta badan waa timetable. inta badan waxaa la yiraahdaa inuu qofku dhigto caadooyinkiisa ama hadafyadiisa inuu u kala jajabiyo siduu u rumeeyo weekly, toddobaadle ama bille ama yearly. wiiga soo socda waxaan akhrinayaa buug hebel, waxaanan akhrinayaa taymka. wuu kuu cayiman yahay hadafkaasi, waxayna u dhowdahay inaad dhammaystirto buugga aad bilowdo. waayo schedule-ku wuxuu ka qayb qaataa marnaba inuu akhriskaagii uu hoosu dhac weyn aanu kulmin. mar walba oo aad schedule leedahay noloshaada waa mar walba noloshaadu ay leedahay organized. taasina waxay kaa caawinaysaa inaad horumar ballaaran aad ka gaarto noloshaada. ka saddexaad ee kuu suurtagelin kara inuu akhriskaaga uu sii socdo waa inaad doorato goob ama beliis ku habboon inaad wax ku akhrisato. beliiskaas oo ah beliis aan sawaxan, aan buuq lahayn. mar walba oo meeshaas ay degan tahay waa mar walba uu akhriskaaga uu guuleysan karo. mar walba oo meel buuq leh ama waxyaabo akhriskaagii dib u dhigasho ku sameynaya ama waxawey kaa joojinaya waa mar walba oo akhriskaagii uu joogsamo. fadlan mar walba dooro. haddii aad go'aansato inaad wax akhrisato waa inaad number 1 doorataa meesha aad wax ku akhrisanayso. taasina waxay kuu fududeynaysaa inuu akhriskaaga noqdo mid sii socda. qodobka afraad ee kuu horseedi kara inaad noqoto akhristo wanaagsan waa inaad leedahay consistency, joogteyntu waa furaha guusha. dhammaantiin waynu ognahay qofka wax joogteeya iyo ka aan wax joogteyn farqiga u dhexeeya. mar walba aad hawl bilowdo, akhris keliya maaha. mar walba aad bilowdo hawl noloshaada muhiima waa mar walba oo aad u dhowdahay riyada ama ka dhabeynta hadafkaaga. joogteyntu waxay kuu horseedi kartaa inaad noqoto qof qanaaco dareemaya, qof farxad dareemaya, qof aan mar walba dareemayn in uu waxyaabo badan uu dib u dhiganayo. waxyaabaha noloshiisa qofka mar walba dib u dhigta waxa ku furan waxyaabo badan sida stress ama inuu dareemayo inuu aanu qaban maalintiisu markay dhammaato waxyaabihii muhiimka ahaa oo dhan inuu gadaal u dhigtay. waxyaabahaasna waxa problemkaasna u ah solution inuu qofku waxyaabaha uu bilowdo uu dhammaystiri karo, joogteyni karo, naftana uu ku dirqiyi karo in waxa uu dhammaystiray, waxa uu bilaabay inuu dhammaystiri karo, uuna joogteyn karo. taasina waa waxyaabaha aad ku guuleysan karto. qodobka shanaad ee kuu horseedi kara inuu akhriskaaga uu sii horumaro waa inaad leedahay dad, asxaab, friends, family kugu hareeraysan, kuwaas oo xiiseynaya ama jecel akhriska. mararka qaarkood noloshu waxyaabo badan ayayna soo hordhigtaa, challenge, caqabado kala duwan. mararka qaarkood akhriska waad ka caajisi kartaa, dib u dhigasha iman karta. waxaweye dad kugu dhiirigeliya ama dad aad isku fikir iyo afkaar aad tihiin oo akhriska jecel waa inaad la saaxiibta. badankana waxaa la yiraahdaa 5 qof aad la saaxiibka tahay ama kuu hareeraysan noloshaada
waa 5 qof ee saameynaya noloshaada. waa inaad aad uga fiirsataa 5 qof ee noloshaada ku hareeraysan si aad horumar u gaadho. Qodobka 6 ee ku horseedi kara inaad noqoto akhriste wanaagsan waa inaad iska xidho dhammaan distractionka. waynu ognahay xaaladdan inuu hadal ku jirno waxa weeye waxyaabo badan ayaa distraction nagu ah sida social media in notificationkii loo furan yahay inagoo wax akhrinayna inaynu dad iskala hadli karno in telefoon hadduu nagu soo dhaco inuu qaban karno in TV uu agteena ka daaran yahay mararka qaarkood oo kale in qof kula hadli karo waxyaabahaasoo kale waa inaad iska xidhaa waayo waxyaabahaas waxay kuu horseedi karaa inuu akhriskaaga uu dib u dhaco ama procrastination ay timaado maalinta kasi dambeysana ay dib u dhigasho fara badan ay meeshii timaado taasina ay caajis iman karto waxa weeye adigana aad ka niyad jabi karto. xaaladdaas asaga ilaaliso waa inaad samayso inaad notificationka mobilkaaga ama waxyaabaha kugu dhow inaad iska xiran karto marka aad focuska tahay ee aad ku jirto akhriskaaga ama waxyaabaha muhiimka kuwa oo dhan markaad ku jirto waa inaad iska xirtaa waxyaabaha waxa weeye focuskaaga luminaya. taasina waxay wax weyn u taraysaa noloshaada haddii aad systemka barto noloshaada. qodobka ugu dambeeya ku horseedi kara inuu akhriskaagii uu noqdo mid guuleysta nolosha waxyaabo badan ayaana soo maraa in waxaa dhici karta mararka qaarkood inaan maalin aynu gafno aynu waxba akhrin haniyad jabin maalinta ku xigta ayaad akhriyi doontaa mar walba oo akhriskaagii aad dareento inuu gaab galay ama inuu ku socdo xaaladii hore ka duwan waa inaad ogsoonaataa ama xasuusnaataa ama aad isweydiisaa sababtii weyneyd aad wax u bilowday. mar walba waa inaad maankaaga iyo maskaxdaada su-aashaa weydiisaa akhriska keliyana maaha wax walba oo la bilaabo waxay leeyihin wax ka dambeeya oo kugu dhiirigelinaya inaad sii wado waxan oo aad marnaba aad ka caajisin wax walba oo yimaada. waa inaad isweydiisaa sababtii weyneyd ee aad akhriska aad u bilowday. taasaa ah su-aasha jawaabta aad hesho ayaa qayb weyn ka qaadanaysa inuu akhriskaaga mar labaad uu soo noqdo uu heerkii aad ugu talagashay uu ku soo noqdo. mar walba waxaa la akhriyo akhrisku wuxuu u wanaagsan yahay maskaxdeena jirkeena iyo caafimaadkeena. fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay subscribe saar like saar siina sheer gareeg walaalahana la wadaag.